بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan bilaabaynaa sida hore u sheegnay cashirkeeni maadada la yiraahdo structural engineering maadada maanta waxaan ka hadlaynaa structural engineering first lecture ayaan bilaabaynaa maanta marka waxaan doonayaa maanta structural engineering ka inay noqoto taxane inay ahaato insha Allah qaybteeni waxaan galaynaa determinate structure waa almost waxa lagu qaataa sanadka saddexaad marka إن شاء الله وأنت وحان سمينا just wax hore oo jiro aan soo cusboonaysiina how to draw SFD and BMD marka إن شاء الله aan aragno marka sida ugu fudud the easiest way isku dayayna in ugu sharaxno si habka ugu fudud ee ardayda qaar ayaa soo weydiiyay problemi noocan lamida marka anigoo ka jawaabayo baahidooda إن شاء الله waxaan example kana u soo gartay إن شاء الله waan soo doonaa ilaa 6 examples oo qaab fudud oo SFD BMD lagu xalina إن شاء الله isku day doona okay aan bilaawno halkan waxaan ku haysanaa beamka wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo UDL incline force oo leeyahay sidoo kale iyo point load ama force oo caadi oo leeyahay marka waxaan doonaynaa inaan sawirno SFD BMD si loo sawiro waxaa loo baahan yahay in la soo helo reactions macnaha reactions hadda horey saan ugu soo qaadanay maadadii mechanics ka ahayd insha Allah waa ku laaban kartaan meeshan waxa yaalo support ruler support loo yaqaano halkan waxa yaalo support la yiraahdo hinge support marka hinge supportigan mechanics-kiya dib ugu baahan maadooyinkan structural-kii la yiraahdo sideeda banaan waa isku xiran yihiin maadada kale ku xiran tahay marka horey mechanics-kii oo first year-ka sanadka koowaad lagu qaato waxaan soo aragnay supports-ka inuu leeyahay reactions hadda hinge supportigan wuxuu leeyahay horizontal reaction iyo vertical reaction halka roller support hore u soo sheegnay haddana aan ku celinayno uu leeyahay only vertical reaction so marka waxaan doonaynaa si loo sawiro SFD BMD waxaa loo baahan yahay in la soo helo unknown reactionadana soo helaynaa ka bacdina waxaan sameeynaa SFD BMD the easiest way insha Allah example kan xoogaa example oo waxa waaye oo ugu adag إن شاء الله اسكو دينا كو كلو varied load او معناها triangle load او قادناها إن شاء الله إن سي شرحنا وكاسا كسو دباد إن شاء الله بوينتيغان waxaa weeye A halka بوينتيغان yahay A بوينتيغاسنا uu yahay B marka momentiga maxaa waa force into perpendicular distance marka dhammaan inta momentiga aan ka qaadanayna intaan momentiga u gelin dhammaan forceska halkan yaalo loadka macnaha culeyska halkan yaalo dhammaantood waxaa loo bedelayaa waxa la yiraahdo point load macnaha point loadkan camal loo bedelaa point loadkan la yiraahdo hadda kan waa incline force waxa u bedelaynaa point load kanna waa UDL waxa u bedelaynaa point load markaas ka bacdi ayaa waxaan ku shaqeyn karnaa si easy ah waxa soo heli karnaa reactionka adiga oo aan bedelin culeysyadan oo aadan point load u soo bedelin ma soo heli kartid reactionka okay let's do aan sameeyno marka incline force-gan wuxuu wataa halkaas ugu jeedaan 100 pound wana incline so marka waxaan u baahanahay inaan laba xabo ka sameeyno incline force-ga tension ma ahan waa compression force beamka sida u jeedo beamka ayuu ku soo socdaa so marka waxaan sameynaynaa one vertical iyo one horizontal verticalka waa inuu noqdo asina compression that means waa inuu beamka ay ku soo socdaan pointkaas waa inay wada imaadaan verticalka iyo horizontal marka haddii uu ahaan lahaa tensionna way ka bixi lahaayeen beamka ay ka bixi lahaayeen so let's do aan sameyno marka waxaan u baahanahay 100 kan waxaan ku dhufanaynaa verticalkaas vertical slope-kaas 100 ka loadka haysanay waxaan u qaybinaynaa 5 so aan sameyno 100 into 4 divided by 5 calculator-ka daaglis waxa ku soo bixinaa 80 pound sidoo kale distance-ga horizontal force-ga sameynaysan waa same 3 times 100 divided by 5 waa 300 divided by 5 daw qaybsana waa 60 so marka waxaa weeye preliminary forces-ka macnaha waa method-ka intaadan shaqada qaban oo reaction soo sameeyo wax hordhaca oo la soo saarayo marka UDL-kana insha Allah UDL-ka waxaan isku daynaa ardayda fahansiino UDL-kan halkan ilaa halkaas uu saaran yahay waa distance-ga oo ku fadhiyo waa 6 distance loadka oo qaadanaya per meter waa 2 pound halkaas ku qoran yahay hadda arkin 2 pound
halkii mitir ba 2 pound waa. So marka total distance inta kasoo bilaa ilaa halkaas meeqa pound oo qaadaa waa 2 into 6 waa 2 into 6 waa 2 alif. So waa kaasa UDL kan downward u socdaa, UDL kan downward u socdaa. So marka 2 alifka ayaa waxaan dhigaynaa inta dhigaynaa loadkaas oo 2 alifka waxaa la dhigaa center of the UDL, center of the UDL, dhex bartamaha UDL. UDL kan halkaas iyo halkaas 6 oo ahay, dhex bartamihiis muxuu noqonayaa 6 divided by 2 3. So 3 in 3, then 2 alifka wuxuu dhex galaa macnaha mar kale aan ku celiyo waxaan soo ogaanaynaa UDL kana waxaan u bedelaynaa point load. Si point load loogu bedelo waa inaan ku dhufanaa total distance of the UDL iyo bar meterka haysan waa 2 into 6 waa 2 alif. So marka waa ogaanay 2 alif. Waa 2 alifka intee dhacaysa 2 alifka waxay dhacay dhex bartamaha UDL ko ah 3 into 3 iyo 3 6 ka lagu qaybinay 3 iyo 3. So marka imaano halkan oo point A halkaas oo point A waxa u qaadataa moment at A marka clockwise kayga positive iyo dhig. So imaano waxay noqonay 50 into moment maxaa la yiraahdaa what's moment? Moment waxa waaye force into perpendicular distance. Haddii force-gan oo vertical yahay waxa perpendicular ku ah horizontal distance. Horizontal distance. So marka 50 into 2 moment kayga meeqa u jira halkan waa 2 distance. 50 into 2 waa meeqa 50 into 2 waa qoranaya plus aan leeyahay balkan point load kan plus point load kan distance meeqa u jira 2 plus 4 waa 8. 2 plus 4 sorry 2 plus 4 waa 6. So marka waxaan u baahanahay 80 oo lagu dhufto 6. 80 ilaa halkaas meeqa waa 80 into 6 mujeda plus inta imaano UDL kan UDL ku waa sameynay waa 2 alif aynu noqotay. Marka halkan iyo halkan aan u baahanaa ma u baahni halkaas ma u baahni waxaan u baahanaa 2 alifka ilaa halkaas waa meeqo waa 2 plus 4 plus 3 plus 3 waana sameynay 2 plus 4 plus 3 plus 3 oo ah iyadana 2 alif. So marka 2 alif into distance go ah 2 alif. So marka minus a leedahay minus sababta u leedahay ku sheega anaga forces kan saan hoos u socday hoos marka u socday maxay ahayn clockwise ahayn laakiin forces kan upward way kor ay u jeedaa by da unknown waa waxaan raadinay waa unknown. So marka kor u jeedo wuxuu noqonayaa forces oo saan u soo socdo ilaa oo ka imaanaya halkaas oo ka soo baxa ilaa oo halkaas ka imaanaya maxaa waaye. So marka wuxuu socdaa anti-clockwise cagsiga saacada qaabkay u socdo anti-clockwise waxa waaye cagsiga saacada qaabkay u socoto si ka duwan u socda. That means marka wuxuu qaadanayaa minus anaga qaabkay saacada u socota positive ama plus no. So marka anti-clockwise maadaama uu yahay minus by into total distance meeqa waaye 50. So marka haddii aan certificate galino waa kana si fudud waa 50 into 2 plus 80 into 6 plus distance-gan hadda isku darno waa 2 alif force-gan waa 2 alif. So 2 alif into 2 alif then marka wax kale ma jiro kana minus oo wataa. So iska banaanka u bixi 0 is equal to 0 banaanka u bixi b waa so marka 15 oo ku dhufsan 15 oo qaybsamayso meeqay noqonaysaa waa 48.267 waa kaasa 48.267 waa soo helnay very good. So ay maana marka maxaa u baahnaa maxaa kale oo unknown hadda maxaan soo helnay hal xabba soo helnay kan bisan soo helnay reaction kan by. So maxaa naga maqan ay iyo ax naga maqan. Mar kale video fudud aan kasoo diyaari doonaa maxaa la yiraahdaa determinate structure. Determinate structure-ka waxa weeye number unknown ka marka ay yihiin 3 reactions laguna xali karo equilibrium condition maxaa waaye ina moment qaadato xabad soo hesho summation of y vertical forces ka ina qaadato oo la isku daray iyo summation of horizontal forces ka saddexdaas marka ay xali karaan unknown equation ka waxa la yiraahdaa determinate structure. Indeterminate kan insha Allah waa gaar doona iyadana waa course kale gooniyo oo structural indeterminate waa. So marka waxaan u baahanaa by soo helnay. So summation of y qaado summation of y waa vertical forces inta imaw kan inta u socdaa wixii kor u socdaa positive no anaga wixii kor u socdaa positive no kan inta u socdaa hoos u socdaa
that inta ka bilaw horta sorry inta ka bilaw kan wuxuu socdaa upward waa that means waxa waa plus so ay waa plus ay tahay then kan inta u socdaa -50 waa hoos u socdaa downward -50 waa so kan downward waa asina waa -80 waa kana kan 2 alif kana -2 alif waa asina downward waa plus by oo ah by oo kor u socdo so qiimaha by wax kale ma sameeyaan qiimaha by waxa soo helay waa haystay waxa ku bedeshay 48.267 halahan marka isku geey waxa soo baxaysa 93.73 waa taqaaniin ay reactionska qaabka loo soo helo koorsadii hore ee mechanicska ayaa dib ugu laabanaysiin iyadoo af Soomaaliya qaabka reactionska loo helo horizontal forceska wax ma jiro hal horizontal force ya taalo wax kale maahan waa 60gas x tan isku direction waa that means x waxa la mid ah -60 pound halkan ay maana oo ah muhiimadda videoga aan u soo duubay in la sawiro SFD ana BMD SFD BMD in la sawiro so marka SFD BMD marka sawirayso waxa u baahan tahay reactions ina soo hesho SFD waxa lagu helaa BMD vertical reactions kana SFD maxaa la yiraahdaa waxa weeye summation wadarta of vertical forces isu geynta macnaha isu geynta markii lagu dhahayo minus ay noqon kartaa positive ay noqon kartaa hadii la isku geeyo hadda -10 iyo -8 hadii la isku geeyo maxay noqonayaan -18 ay noqonayaan isu geynta ama hadda +8 -10 hadii la isku daro maxay noqonayaan wax saas oo kale marka isu geynta ama positive ha noqdaan ama waa wadarta isu geynta falaarta taagan ama tugan so marka ay maana waxay haysanaa 93.73 wax dhan pointyada waa haysanaa loadkan waa sidiisii oo waxa uu noqonaa point load waa bedelnay marka insha Allah aan sameeyno intii marka halkaani calaamadani waa calaamadii dheereed soo marka waxa u baahnaa meeshan waa 0 meesha waxay tahay 0 graph 0 wixii inta calaamadan ka hooseeyo waa minus wixii calaamadaas ka koreeyana waa positive oo ah ku dar soo marka ay imaan halkan imaan ani halkan marka joogo beamkayga halkaas markuu joogo maxaa haystaa ani reaction kor aad ay haystaa oo la yiraahdo AY vertical reaction haystaa maxaa u socotaa kor ay u socotaa upward soo meeqa ilaa kor meeqa u soconaa 93.73 very good waa kaas halkaas markaan gaaro waa istaajinaa soo marka waxaan leeyahay kan iyo kan maxaa u dhaxeeyo wax load ma u dhaxeeyo beamkooda maxaa waa straight beamka structure-ka straight waa wax load oo ma dhaxeeyo maadaama ay wax load u dhaxeeynin xariiqinta ajiida waa xariiqin straight ah macnaha waa xariiqin horizontal line then marka aan imaano 50gan 93.73 haystaa waxaan haystaa -50 oo hoos u socoto 50 oo downward ah marka maxaan sameynaynaa waa ka jaraynaa haddii aan haysan lahayn 50 oo upward ah waa ku dari lahayn laakiin 50ga wuxuu yahay downward so marka haddii aad ka jarto 93 waxay noqonaysaa 43.73 so loadkan iyo loadkan wax ma u dhaxeeyo labadaas load wax load oo ma dhaxeeyo labadaas force so marka sideed u jeed wax kale ma iyadana jeed halkaas ima so marka inta waxa ku haysanaa 43.73 maxaa haysanaa marka halkan fiiri maxaa soo helnay 80 pound oo ah mid hoos u socoto 80 pound oo ah hoos u socoto so waa ka jaraynaa horaan kuu sheegnay marka hoos aad soo aado xariiqinta aad ka soo degto maxaa helaysaa 40 waxay helaysaa negative halkaani aa imaan xariiqan markaad ka soo degto bending momentiga hadhow meesha wuxuu noqon doonaa maximum bending moment hadhow aan tusi doonaa xariiqinta meesha laga soo duwo wuxuu noqonayaa maximum qiimaha ugu weyn ee bending momentiga halkan ayuu dhici doonaa so ay maana marka waa ka jarnay marka aan ka jarno 43.73 80 markaan ka jarno waxa imaanayso 36.27 waa isku darin kan plus waayo oo 43.73 -80 leenahay that means waxa noo imaanayo -36.27 halkaas ay imaan so marka loadkan iyo kan wax load uma dhaxeeyo sidiisa u socodsiineynaa halkaan markaan keeno UDL ka waxa waaye wuxuu ku imaanaa loadkiisa ku imaanaa oo ah 36.27 oo ku imaanaa halkaas markuu imaado halkaan calaamadii xoogaa meeshan waxaa ka jira halkaan markaa imaano waa UDL-ki halkaan UDL-ki distancegiisa waa UDL-ka distancegiisa wax kale ma sameynayno UDL-ki qaabka force lagu bedelo haddii taan soo sheegna waxaa waa 2 into 6 oo ah 2 alif
awood ayaa halkaan maraysa loadkiisu waa 2 alif so marka 2 alif halkaan markaa joogno 36.27 waaye loadkan maxaa waaye downward waa hoos u socdaa anina inta joogaa meesha hoosaan joogaa that means waxaa waaye calaamada negative waaye kaasna negative waa that means waa isku darsamayaan mar walba ardayda meeshaan way qaldaan calaamadan positionka aad joogo waa negative calaamada aan rabano inaan ka jarano iyadana waa negative that means hoos ay aadi laakiin hoos maxay ku aaday hoos ma iska aadaysa laakiin hoos wuxuu ku aaday force jiro halkaan imaano UDL ka SFD giisa waxaa weeye incline wax la sawiraa waxaa waaye incline aan isku dayo inaan halkaan ku sheego haddii for example haddii beamkayga halkaan UDL ku haysto UDL ku haysta SFD gayga wuxuu noqonaa incline SFD gayga wuxuu noqonaa incline BMD ga haddii BMD aan sawiraayo SFD ga waa gaari doonaa SFD gana wuxuu noqonaa sorry haddii BMD ga aan sawiraayo SFD ga oo incline yahay BMD wuxuu noqonaa curve oo ah 2 degree curve waa isla fahnaa u maleynaa haddii beamkayga oo wax looda oon saarneen wuxuu noqonaa horizontal line oo SFD ga noqonaa BMD ga wuxuu noqonaa incline yaa la isku qaldin haddii beamkan SFD markaan sawiraayo waxaa noqonaa horizontal line calaamadta BMD geegana wuxuu noqonaa incline so marka halkaan aan imaano halkaan UDL aan haysanaa beamka so marka muxuu ii noqonaa calaamada waxa aan sawiraayo mar walba imtixaanaadka waxaan wala isku qaldawana meesha uga adag UDL SFD markaan sawiraayo incline waa so 2 alifka ku dar incline 48.27 aniga hadeed reactionkayga maxaa haysta fiiri waa 48.26 almost wax yar u dhaxeeya waa 27 wax mis dhama so marka kor soo aadaa oo soo balance gareena that means 0 imaanaya SFD waa inuu 0 ka tagaa meesha ku dhamaanayna waa inuu 0 imaada waa absolutely waa inuu su'aashaadii ama equationkaada uu saxan yahay waxa ku ogaa kartaa SFD ga inuu 0 ka bilaawdo SFD ga inuu ku dhamaado 0 okay wasla garan okay moment maxaa weeye moment diagram ka si fudud waxa u baahannahay in BMD is nothing Allah but the area of SFD fiiriya area the SFD ayaa wax laakiin BMD waa wax ma so anaga meeqa haysanaa structure 1 meeqa area helina 1 2 3 4 1 2 3 4 alxamdulillah tan waa fududahay halkan areadan waa rectangular kan waa rectangular halka kan uu yahay trapezium marka waxaan sameynaynaa wax yaraan sameynaynaa xisaab yar area 1 aan leenahay kan area 1 isku darka macnaha isku darka kii hor muxuu ahay SFD muxuu ahay isku darka falaaraha taagan vertical forces ka summation of vertical forces SFD lagu sawiraa halka BMD lagu sawirana summation of area of SFD summation isu geynta badka SFD ga marka aan sameyno area-dan sameeyay 93.73 distance-gan meeqa halkaas aan ku sheegno waa 2 aan sameyno 93.73 times 2 waa 187.46 waa kana haddii sheegnay haddii SFD gayga uu yahay horizontal line BMD gayga wuxuu noqonaa incline haddii horizontal uu yahay BMD gayga wuxuu noqonaa incline that means waa kaas waa sawiray 187.46 calaamadan plus waa that means kanna plus waa ku sii dara kor le u sii soconay so aan imaado plus dhe marka kan maxaa waa marka halkan waxaa ku haystaa area-dan waxaa waa 43.73 oo lagu dhifto 4 43.73 times 4 wakaasa waxaa waaye 362.38 haddii halkaan aan sheegno waxaan ku dhahay qiimaha ugu badan BMD ga wuxuu noqonaa meesha oo crosska SFD ga kasoo gooyo ayaa waxaa noqonaa maximum bending moment so marka hadda maxaa u baahnaa kan hoosoo aadaa area-dan ka jar waxaa waaye minus area-dan maxaa inta ku haysanaa heightkeeda 36.27 oo lagu dhiftay distance-ga oo ah 3 meeqa ay soo bixis 253.57 waa kaasa
253.7 laakiin waa incline maadaama kan uu yahay horizontal line aad ay u fududaa waxaa simple waa kan wuxuu ku yaalaa minus kan halkan waa trapezium structure kan rectangular ahay rectangular maxaa lagu helaa area-diisa base times height waa la yaqaanaa laakiin trapezium waxaa lagu helaa a plus b divided by 2 oo lagu dhuftay distance-ga maxaa laba force haystaa inta maxaa haystaa 36.27 intana maxaa haystaa 48.27 that means waxaa waaye labadan force isku daro 36.27 plus 48.27 laba u qaybi distance ay ku fadhiyaan meeqa waaye 6 waa waxaa waa 253 so marka waxaan rabnaa aniga hadeet maxaa haysanay maxaa soo baxay 253.57 oo ah weli positive-ka taagan tahay inta BMD wuxuu yahay negative-keeda halkaasuu taagan yahay marka kan negative waa ka jar 253 daa ka jar 253.0 isku soo baxay that means wixii waa isku dhamaaday BMD-ga 0 waa example insha Allah iyagoo kala dhigan oo kala wacsan insha Allah waxa kala socon doontaan baga YouTube-ka ku leenahay ee Somali Civil Engineers waxaan isku dayaa inaan cashirada soo badiyo oo maadadan structure so marka cashirkani wuxuu noqonayaa cashir oo hordhac oo si simple so aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah